أراس مقات نكاي هرمو أركت متقن ما تليفون واسكن هذا اللي بيجي ماركين lama siin doorasho ay ku kala xulan karaan qofka ay xilo u noqonayaan taasi waa maragba doonto haddana mid kasta oo ka mid ah gabdhahan waxa ay maqashay codkan in loogu sheegay inay u dhixi doonto waa dhaqan maafiyanimo ah una eg jiliinada laga sameeyo horjoogayaasha daraag dealerska filimadaasi silaaca ayaa lagu arkaa tacdiibinta iyo ka ganacsiga haweenka aad u yar gu ahaan iyo qolfoof ahaan caqliga saliimka ah ma tilmaamaya xal u helidda askarta baahiyahooda jinsiga ah laakiin madaxweyntooda jabhadaha ee ku go'doonsan dagaalada kaymaha waa loo dusiyaa haweenka yeelkadeeda inaan loo ekeysiinin warin rabbi waa fasir u furan culimada diinta oo ay tahay inay si adag ugu sheegaan waalidiinta Soomaaliyeed ka bari ahaanshiyaha xadgudubyadan نونا محمد إبراهيم أنسان كل حسين نورتا عبد نور آدن فوسيا إساق نونو فاضمة محمد حسن إقرأ إبراهيم حسن سوبا عبد الله الشيخ محمد أيا لقى قبتي جولاي لحي تبان كيدي سنة كان بوستي جدا سوق بعاده لقرر بابور تحمول كاه وبحضة قبلة قارهان شبيلة دحية قلقدود دا أهان وحي لسيميهن قار حلقة تقليف كاه هالكا كوا كمدا يسن حتى قارن سنة 10 سنة maxkamadda hor fadhiyo 7 eedeysane 7duba waxay u doonaayeen oo soo dalbaday oo ilaa Buurhaka ilaa Kismaayo loo keenay in loo geeyo qawaariid looguna geeyo meeshii ay joogeen oo duurka ceeldheer ah waan guddoomiyay si wada jira waxaan ugu eedeynay maadaama isku wada mid yihiin guurkooda iyo naagahooda iyo shabaabka naftirkooda waxooda dhan ay isku wada mid yihiin waxaan ku soo wada eedeynay inay ka wada tirsan yihiin ururka al-shabaab sidoo kale in la soo doontay dawladda ka qariyeen waxaan ku haysan waa taas waxay ahayd shabaab baa soo doonto inay beedhaba intay imaadaan iska diiwaan galshaan in shabaab ay soo doontaa la ogaaday dhahan taas ma dhicin waa qodobka 14aad ee xeerka dagaalanka argixisada oo sheegayo waajibnimada in la sheego xog argixisa ama xubin argixisa awdiina ku qoy أيه ومالي بير فلتو أودينه كوي شباب المرشقين لكن بدايتك على الشباب هو يا كقدر وايد كاجسال وقدر إيشك وايد داري معي يلا يباي وايد داري ها وده كاج مجلس حسن سياد عبد الرحمن عبها منو ليه مايا يا كقدر أديك أديركي أديك محكوشة محكوده ما كذا لاكي داري هذا ياري أنا نباي هيدري هذا يا كودي يا أتكوده أنت سو بحيس أنت نسعت يا أنا كوهجاي أديك يا كوهجاي أنا ببيدو كوي بيدو باورا كوريا مرة كوي مرة باكتاوي هتنا سوق بيت كوي لداري سوق بيت لكوي كده بتسعت ديرو dad kan oo gabdhaha kula socda yaa istaqaanin intaas ka soo raacdan maya baawar kale ku kulmay qof oo ku wada ma jiro oo suuq bacad yaa ku geey yaa ku maya bajaaj leeraytan suuq baad leh koy baawar ka mid deenaani qowdi shabaab bay dhawi ka imaan shabaab ninkay la shabaab adeerka ay tar seemadan xariirka la soo biday oo shabaabka nagatay oo lan shabaab lakin ka dare ay waalidka ilaa ii dare ma waalidka inta rooga qaabkeen ka dareen meel sharaxad ku bi awkay ki fool in dhal dham hay awka dhimade hay adeerka ilaa ii dare adeerka inta roogi baadi meel la rugo ana leeri inta lanka ii dare magaaje محمد إبدلي الأراه مويش أنهم كسائر مغاشي ياه إبدلي شيء متكرم الأراه مويش مكساو أنا مقورسن كو لم كور يعني لا تيجي درين بايدو جذار شيء بديه يا كيمادي بايدو كيمادي gabar ahaa guriga joogay waa li soo doontay aabe ay gadarey yaa ku soo doontay yaa ku soo doontay ninka dadkiis magis Abdullahi baydo gaari ku soo ray Muqdisho iimaaday amar baa kule kuray suubaada la ogowdi inta u socotay dheer ninka hore mu aragtay mataqaan maya taleefon waa iska hada libiga markin yaa ku hagaayay ku wacay oo xaga tag ku dhahay usi
gabdhaha meeqa qof istaqaaneen soo raacdeen baydhabo baawarka leeka waad kulumni adin ninkii yaa kugu daray intee ka imaatay intee u socotay ninkaaga muxuu ka shaqeeyaa soo dhawow waalidka inka daray Kismaayo ka imaaday dheerin socdaay sugbaad kale insalamada adiga meeqa sano jirtaa 14 sano aroos ma gaartay yaa kugu daray marka yaa adeerkay muxuu ku dhahay ninga kasiyay leerin baasay ninka ma taqaan adiga daarag maya leerin soo yahay say kusoo baxday intee kasoo baxday intee soo martay buur aroonsa koy buur xamara koy suubaad koy leerin saasa ka bay yaa ku dhaway warkaas uso baarkaas ayaa koray maanta baarkaay leeba aan kala hadalay buur ha ko aroonsa koy tuulido buur markii yaa ku soo doon adiga idis buur ma degantaa ma ay weer deganta adiga meeqa sano jirtaa 15 waxaa noo sheegtay see lagugu daray yaa kugu daray adiga yaa nool waalidka yaa nool waalidkay daray ninku waa kii daray baad leel erani magaciisa Cabdiraxmaan misla hadasheen maya mar misla hadal waalidka yaa nool aabbaha ma joogo mise adeerka waa aabahay shab oo hool dhagata baadiyo darafyada madashan ganacsiga ah ayaa kala jooga halkan waa kan ku xigeenka xeerlaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida Maxamed Cabdullaahi Khaliif iyo Abukaatib Xuseen Cariif Sheekh Cali mudane gudoomiye eedeysanayaasha dhammaan waa under age waa da'yar sida ka muuqata qiraaladooda 14 15 16 17 sano ay wada jiraan kulligooda waxay ka soo tageen deegaanadoodii oo ay u badan tahay Baydhabo dhulkay soo mareen suuq bacaad boosteejada laga rara baabuurta ayaa lagu qabtay iyagoo u socda ceeldheer hay'adaha amniga ayaa arintaasi ka hortagay ayagoo feejigan ay ku qabteen hay'adaha baarista ku soo wareejiyay hay'adaha cadaaladdan hadda la horkeenay maxkamadda mudane gudoomiye maxaa sababi kara marka gabdhahan under age ka ah inay masaafo intaas leeg soo jaraan waxaa sabab mudan gudoomiye waalidkii iyaga dhalay ayaa wuxuu si khasab ah ugu daray rag ka tirsan khawaarijta al-shabaab oo ceeldheer joogo intaas uguma ekeenne waxay ku qasbeen inay goobaha ay joogaan ugu tagaan waxaa la yaab leh mudan gudoomiye eedeysanada lixaad iqro waa 14 jir waalidka 14 jir ku daraya nin dilaa ah oo arxan daran oo duurkaas ku jiro oo kadibna baabuur inta u saara u tag dhahayo oo raba 507 kiiloomitir inuu jaro Baydhabo ilaa iyo ceeldheer 507 kiiloomitir waa ayadoo la og yahay inay wadadu bahal ay ku jiraan oo khatartu ay leedahay qof dumar ah oo gabar ah ay qof kasta arki karto ayadoon wax muxrama la socon wax walaala la socon wadadaas lagu daayay mudane gudoomiye waalidkaas ma garan kara qalbiga uu leeyahay sababtoo ah waalidka by default wuxuu u yahay naxariis isaga laga soo gaaray bal cagsi ayuu noqday isaga bahalkii ku daayay maxaa yeelay waalidku isaga gaajooda si uu muxuu ahaa ilmihiisa ay u dhargaan isaga khatarta isku dhiga si ilmihiisa u noolaadaan hadda tii ma dhacday ma dhicin isagii waalidkii ayaaba ilmihii khatarta u dirayba oo nin shabaab ah oo dadka laaya oo argagixiye ah oo argagixisada ka tirsan u diray ninkaas dawladda dagaal kula jirto xabada 4 saac lagu ridaa duqeymaha socdo gabadha 14 jirka ayuu u diray mudan gudoomiye garsooreyaal maxkamadda sharafta leh waxaan maxkamadda si sharaf leh uga codsanayaa marka koowaad in waalidkaas tilaabo cad ay maxkamadda ka qaado sidoo kale waxaan codsanaynaa in eedeysanayaasha dhammaan lagu wareejiyo hay'adaha dhaqan celinta si rehabilitation loogu sameeyo maxaa yeelay waxaa la rabaa in laga badbaadiyo naftooda ninkay u socdeen oo shabaabka ah sidoo kale waxaa la rabaa in laga badbaadiyo waalidkii iyaga dhalay naftirkooda khatar bay ku yihiin maxkamaddu waa maasanta mudane gudoomiye gabdhaha mid baan xabsiga ugu tagay aan ku soo wareystay xabsigaan ugu tagay waana soo wareystay mudane gudoomiye sida aad maxkamadda horteeda aad maxdarkaba ay ka sheegayaan iyo sida ii sheegeen horta waa is waafaqsan yihiin ilmo yar yar
oo ikhtiyaarkooda mid iyo laba markii laga reebo aan ikhtiyaarkooda aan waxba ku guursan weyn ninka guursadana aysan aqoonin asbaabta kaliftana waalidiintooda waa la xiriiray sababta kaliftana waa weydiiyey mabadii waxay joogaan ilmuhu waxay ka yimaadeen deegaan shabaabku ka taliyo awood aan ku diid ilmaha yararka waxaan u soo dhiibnay aan faraha qaadnay awood aan ku diidno oo aan ugu diidno oo maya aan ku dhaanay ma yeeli karno laano annaga madaxna laga jarayaa biiraad marka duruufta baa nagu kaliftay yiraahdo inaan intaas nolol ka raadino kumana waaridkoodna kuma qanacsana hatta dhiibista la dhiibay waaridkood kuma qanacsana qanaaca sax ma jirto ayaguna eedba ma laho waa masaakiin oo ilmaha yararka weeye oo aan ikhtiyaar ba aan lahayn marka saasaan dambiba u jira sida waafaqsan qodobka 16 dambiba ma jiroba dambi ay galeen ilmahani ma jiraan asaalatan waxaan maxkamadda sharafta la ka codsanayaa in horta marka koowaad xorriyadooda la siiyo dad ehel u ah oo magaalada jooga oo haynayana waa joogaan oo lagu wareejin karo mas'uuliyiin lagu wareejiyo waxba dawladda ku cuslayn mayno lagu cuslayn ehelkooda magaalada la jooga ilaahay waa soo badbaadiyay gacmihii amnigooda qabtana oo way mahadsan yihiin dad dabiinta oo ayaga qabta oo magaalada ku haya baa la helayaa waxaan maxkamadda ka codsanayaa xorriyadoodii in la siiyo damiinna loo dhiibo maxkamadda waa madsanta dhinacyada dacwadda ayaa garsoorka u daayay maareynta kiiskan ka yaabsaday waa kan gaashaanle sare xasan cali nuur shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida oo faraya hay-adaha ay qosayso go'aankan bacdama 7 gabdhood ee hortaagan maxkamadda ay isugu jiraan kuwa da ahaan aan qaangaarin iyo kuwa aan u bislaanin garasho ahaan isla markaana aysan ka helin waalidkood xanaaneyntii ku habbooneed oo ay nafahooda halis geliyeen waxay maxkamaddu amraysaa in dhammaan 7dooda lagu wareejiyo barnaamijka xanaanada iyo dhaqan celinta haweenka sidoo kale waxaa la farayaa hay-adaha amniga inay la socdaan xaaladahooda nololeed iyo tooda nabadgeliyo maxkamaddu saasay ku xiran tahay waa xoog iyo xeelad beeleen khawaarijta hubaal waxaa adkaan doonto marka argagixisada laga itaal roonaada kadib isku baadigoobidda shakhsiyaad hidda sidayaalkooda ay isleeyihiin laakiin aan loo haynin diiwaan sax ah cabduqaadir ciise warbaahinta qaranka muqdisho